xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Beligubadle Fahad Maxamed Qoorciin ayaa maanta shir wada tashi ah la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan ee xarunta gobolka Awde ee magaalada Beligubadle. Shirkan oo ka qabsoomay hoolka dowladda hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada xubno ka tirsan golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta gobolka Awde Maxamed Faarax Sugaal. Xogayaha ayaa shirkan ka sheegay ujeedada kulanka iyo muhiimadda ay leedahay in maamulka iyo bulshadu si wada jir ah uga tashadaan horumarka degmada Beligubadle. Dhankooda bulshada rayidka ah ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulanka iyagoo sheegay in uu yahay shir cusub oo xoojinaya wada tashiga iyo ka qaybgalka bulshada ee maamulka degmada Beligubadle. Hoolkan dowladda hoose ayaa saaka lagu arkayay in uu kumayaal ruux ay soo buux dhaafiyeen gudaha hoolkaasi iyo xarunta dowladda hoose ee Beligubadle. waxaa ka mid ah adkeynta iyo iskaashiga isku xidhnaanta bulshada iyo maamulka shaqaalaha dowladda hoose. maamulku ma noqon karo mid bulshada ka fog. waxaan rabaa anigu maamul albaabkiisu u furan yahay shacabkiisa, ganacsatadiisa, culimadiisa, odayaashiisa, dhalinyaradiisa iyo dhammaan bulshada reer iyo dhammaan bulshada deegaanka oo dhan. bixinta cashuurta iyo kor u qaadista dakhliga degmada Beligubadle iyo deegaankiisa. ganacsatada sharafta leh waxa aan leeyahay cashuur bixintu waa waajib, laakiin sidoo kale waa heshiis bulsho. marka aad cashuur bixiso bulshadu waa inay aragtaa meesha ay ku baxday cashuurtoodu iyo waxa looga faa'iideeyay. daayar ayaa inoo yimi oo talada Beligubadle maanta aynu wadaagno ku yar ku weyn haween oo qaal odayaal dhalinyaro maanta waa ilaahay baadiyadii la isla baryayno. xogayaha dowladda hoose oo runtii inoo wacay shirkan fikrad wanaagsan oo wax lagu horumarin karana la yimid. waayo horumarku marka horumar la doonayo kama yimaado qof, kamana yimaado qayb keliya bulshada ka mid ah, laakiin waa isku duubni baa lagu gaadhaa iyo dadka oo fikirka iyo xoogga iyo maalka saddexdaasi mideeya. saddex talo waxaan doonayaa in waliba weeleeyaan fulinta degmadu iyo xildhibaanadu. saddexdaa talo waxa weeyaan waa koowaade sariibadii horta ma furna, muddo dheer bay naga xidhantay. bisbaa ku socday bisbii waxaan malanayaa uu iska dhayi u dhamaaday. sarbadii in la furo lagu soo xarayo jiirka banaanka lagu iibinayo waagi bariwada dhaska iyo ku dhacayaan iyo bakteeriyadu ma qurux badnaa. bilicdii magaaladana way naga xumaynaysaa. taa waa soo jeedinayaa sarbadii lagu xarayo furada iyo jiirka. kawaakii xoolaha in isagana la sameeyo saylad qurux badan oo ballaadhan maadaama ay dad xoolo dhaqataan ahay iyadana in la dardargeliyo dowladda soo jeedinayaa. waxaa kaloo soo jeedinayaa istaanka ku dhex yaala suuqa dhexdiisa in laga rabo meel nidaamsan oo istaanu eeg loo sameeyo. xukuumad ahaan iyo bulsho ahaanba inaynu ka shaqayno sidaynu noqon lahayn magaalo ganacsiyeed. degmada Beligubadle horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. fikirkaasi waxa weeye intaan joogay iyo intaan jiray macaamil nuna ka noqday meesho nin dadweynaha Beligubadle isugu yeeray waa koow. maslaxad xogayaha dowladda hoose arrimaha wanaagsan waa arrimo looba waayo gobolkan intaan joogo waxyaabo badan waxaan ahaa dadkii ka mid ahaa aniyo rag badan oo kale wadada xarunta annaga horumarkeeda lahayn aba qurbo jooga. gobolkan wuxuu ku dhismaa cashuur. waa inaan cashuurta bixinaa oo aynu hirgelinaa inaan cashuurta bixino. cashuur badanna waanu ku soo hoynaa oonu qarax ka keenno. iminkana aad baanu kaagala shaqayn doonaa oo soo iska kaa garab taagaynaa. dadka kaleba lacagtii cashuurta iyo way ku qasbay weynahaya ee cid ka qaadatay u baahan nabadgelyo la waayo, qurux la heli maayo, waxbarasho la heli maayo, horumarna la heli maayo. saabku qabtay waa waxa weeyaan mas'uuliyiinta barasaabka la shaqaysanay wada qabteen. waxa gobolka uu soo kordhiyay sida runta ah oo barasaabku ka shaqaynayo wax magaaladeena Beligubadle noo camraya. haddii ay tahay jaamacadaasi infrastructure-iska waxa weeyaan kaabayaasha dhaqaaluhuna waxay kor u qaadaan waxa weeyaan horumarka magaalada.